nabad daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan. daawade weligaa ma isku dartay dhagayare iyo malab adigoo ka raadinaya dawa ahaan? muxuuse ka dawa yahay? waxaynu ogsoonnahay in dhagayaraha dad badan ay ku badbaadeen xilligii koroonaha, balse iminka xanuuno kale ayaa loo isticmaalayaa oo lagu daweynayaa. sidee loogu daweynayaa dhagayaraha iyo malabka? sidee la yeelayaa? intee baa la isticmaalayaa? xanuunadeese lagu daaweynayaa? waa su'aale waxaa intaas soo idil nooga jawaabaya Sheekh Xamse Axmed ee daawasho wacan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالكن دي موقدة ودغيره دغيرها مرات بدن بين كسو hadalnay waxyaabaha uu daawo ka yahay iyo waxa uu qabto insha Allah taala. maantana waxa aan soo gudbin doonaa laba xanuun oo uu daawo ka yahay dhagayarahanu, laakiin qaabka aad u isticmaalaysa waa qaabkee? waa qaab ku duwan sidii hore aan soo sheegay. waayo hore waxaan uga soo hadalnay wadna xanuunka, dhiigkarka, gaastarida iyo xanuunadaas kale sida uu kaaga daaweynayo. balse maanta waxaan uga hadli doonaa mid ka duwan xanuunadii aan soo sheegnay oo uu isagu ka daaweynayo. ka koowaad waxa weeye xanuunka thyroidka la yiraahdo ee ku dhaca cunaha shakhsiga, sida oo kale xanuunka kansalka ee ku dhaca dadka cunaha kaga dhaca. labadaas xanuun ee cunaha ku dhaca waa thyroid, xanuunka la yiraahdo ee cunaha ku dhaca, iyo xanuunka kale ee asagana la yiraahdo kansalka ee ku dhaca cunaha shakhsiga kaga dhaca cunaha. labadaas xanuunba waa ka daawo. waxaa kale oo saddexeynaya xanuunka la yiraahdo hargabka ee ku dhaca caruurta ambase qofka weyn marka uu hargabka joojin waayo. saddexda xanuun ee cunaha ku dhaca saddexdaba daawo ayuu ka yahay. waa thyroidka insha Allah taala yaanu ka hoos bixin, kansalka ku dhaca cunaha iyo hargabka marka faraha badan leh aad ka shakido ay cunuhu ku xanuuno. sidee ayuu daawo uga yahay? waxa aad soo qaadanaysaa qadar leeg labadan xabbo ee aan hadda hayo anigu. waa laba xabbo, waa dhagayare. labadaas xabbo waad dubaysaa, dab ayaa saaraysaa, waad dubaysaa. markuu dubmo waad tumaysaa. marka aad tumto waxa aad soo qaadanaysaa malqacad malab oo saafi ah, malqacad malab oo saafi ah iyo labadan xabbo oo tuman ayaad isku walaaqaysaa. marka aad isku walaaqdo subaxii halkaa malqacad ayaad ka cabaysaa. haddii thyroidku hayay oo cunahaaga loo taag waayey, iyo haddii kansal cunaha kaaga dhacay uu shakhsiga hayay, iyo haddii hargab cunaha xanuujiya shakhsiga hayay, saddexdaasba waa ka daawo. marka aad dubto ee aad tumto malqacad malab oo saafi ah aad ku walaaqdo uu shakhsigaas cabo dhowr subaxood markuu cabo shakhsigaas ilaa iyo 7 subaxood haddii uu shakhsigaas cabo labadan xabbo ee dhagayaraha iyo malqacadda malabka ee saafiga 7 subaxood oo kaliya haddii aad cabto insha Allah taala ilaahay subhanahu wa taala wuxuu kaaga gaxeen doonaa rabbi subhanahu wa taala xanuunka thyroidka, xanuunka kansalka ee cunaha ku dhaca iyo xanuunka kale ee hargabka ee joog. waa hagaag, waxaan filayaa in aad ka faa'iideysateen sharaxaadda uu ina siiyey Sheekh Xamse Axmed. dad badan ayaa inta badan waxa ay sameeyaan muuqaalka ma wada daawadaan, in bay ka daawadaan hadhowna su'aalo ayay nafta kaaga qaadayaan. tusaale ahaan waxay leeyihiin intee maalmood baa la isticmaalayaa oo kale. hadda sheekhu waa uu idiin sheegay 7 maalmood baad isticmaalaysaa. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad noola socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka iyo channel-ka Bulqaas, ha iloobin inaad subscribe, like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddii si aad tahay macmiil soo noqday, hanaga iloobin in aad muuqaalkan aad share garayso oo dad badan aad gaarsiiso. wixii aaraana dhinaca commentiga sidoo kale waad noogu soo gudbin kartaa ama waad noogu soo qori kartaa, iyo waliba dhinaca messageska. aad baad u mahadsantihiin.